Afrika waa qaarad hodona caruurtuna waa mustaqbalka uu ku xisaabtamo dal kasti 16 Juun waa maalinta loo asteeyay maalinta caruurta ee qaaradan Afrika haddaba Somaliland sanadkan waxa looga xusay si aada xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa waxa ka dhacday xaflad ballaaran oo ay soo qaban qaabisay dhalinyarada halka ku dhaqan xafladaas waxa ka soo qayb galay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Mudane Cabdullaahi Cirro wasiirka arrimaha dibadda wasiirka beeraha wasiirka caafimaadka wasiirka cadaaladda madax kale iyo waliba dadweyne aad u tiro badan xafladan oo ahayd mid dareenka dadka aad u soo jiidatay ayaa waxay dhalinyaradu halkaas ku soo bandhigeen heeso ka tarjumaya wadciga xilligan iyo sidoo kale riwaayad ka tarjumaysa xaaladda aynu iminka ku sugannahay 16 Juun waa maalinta loo asteeyay maalinta dhallaanka ama caruurta ee Afrika iyadoo ay maalintani ay taariikh gaar ahaaneed ama muhiimad gaar ah u leedahay dhammaan caruurta ku kala filiqsan qaaradda hodonka ah ee ay aafeeyeen dagaaladu Somaliland waxay ka mid tahay goobaha sida aadka ah looga xusay maalintan halkan aynu iminka joognaa waa xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa xarun lagu xanaaneeyo caruur badan oo agoon u badan waxay goobtan caruurtani ku soo bandhigeen xaflad runtii kamid ah xafladaha ugu qaalisan ee baryahan la qabto oo soo jiidatay dareenka ka soo qaybgalayaashii xafladan ayaa ka tarjumaysay wadcigan aynu iminka ku sugannahay waxa xafladan goob joog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Mudane Cabdullaahi Cirro wasiirka arrimaha dibadda wasiirka caafimaadka iyo sidoo kale wasiirka cadaaladda iyo mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan haddaba aynu yara milicsano xafladan waxaana dhalintu ay ku labisan yihiin hidaha iyo dhaqanka Somaliland sidoo kale waxay ku jeeni qaaran yihiin calanka Somaliland iyagoo ugu horeyn xafladan ku furay heesta ama astaanta calanka Somaliland
توسيو الكويت رايو أيوم بوي تومايو مستاي قرا إسكولي مكيو أردينا يمر عشاء أولين بو برايو حرينا يقدره والله وادي بطل يا إنكم قاعدين إنا لله وإنا إليه أبدا وراد ميوك دلاو قال والبا يا عطوا تتكاسين إنك أوتينا سلسلة راحنا قولك تعلم بو ما نستطيع وحنا كوبشلا إنا لله وإنا هيا الرملو والهذا دين واحدة العروض تلا والهذا لو شك يعني يوم دين تنكون يافر بقول سنة وهراء وتعالي ودستور نويا لا والله ولا لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم كان خدعا كبيرا بيت هدي لنا عروضة أبي وين وتجي نمري